السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما خيارتكم احنا channel كنا أحمد داير قدني كسو دوادا موقع عصب. ما انتو وحين كهالي دونا شنو حيابو دويدتكو ادو استعمالا قرنيا ولا اللي في قرنيا اللي صودا في. نمبر كو موبلك قاعنت waxaa la soo daayay 3 Abriil 1973 waxaana sameeyay Martin Cooper oo shaqeynaya shirkadii Motorola. Mobilkaas uu ku ogolaanay inaad 30 daqiiqo ku hadashid ayaa sidoo kale ku ogolaanay inaad 30 nambar ku kaysatid. waxa uu xilligaas joogay ku dhawaad $4,000. xilligaas kadib waxaa soo batay sameynta moobilo casri ilaa laga soo gaaray xilligan aynu joogno oo ay moobiladu leeyihiin sawirro, muuqaal duube iyo internet. Number 2 telefishinka ayaa kamid ah waxyaabihii ugu waaweynaa ilaa ilaa qarnigii 20aad ee la soo dhaafay. telefishinka ugu horeeyay ayaa ka duwan midka xilligan oo haysano kaasoo lahaan jiray shaashad madow iyo cadaan. janaaladii xilligaas jiray ayaa shaqeyn jiray waqti kooban xilli maanta ay shaqeeyeen 24 saacadood maalin walba. Number 3 diyaaradaha 17 December 1903 ayay ahayd sanadii la soo alifay diyaaradii ugu horeysay ee lagu guuleystay inay duusho. waxaana alifay laba wiil oo walaalaha una dhashay dalka Mareykanka. diyaaradaha ayaa kamid ah waxa aysan dadku xilligan ka maarmeyn. tirikoob la sameeyay 2014 waxaa la sheegay inay xilligaas jireen 39,000 oo diyaaradood maalintiina ay sameyn jireen duulimaad dhan 37.4 milyan. Number 4 kombiyuutarka ugu horeeyay ayaa la bilaabay sameyntiisii 1943 waxaana la soo afjaray 1946. kombiyuutaradaas oo waaweynaa daraadeed waxaa lagu koobay isticmaalkooda dawladaha iyo shirkadaha. intaas wixii ka dambeeyay waxaa la bilaabay sameynta kombiyuutarada yaryar ee lagu magacaabo laptop. Number 5 internetka ayaa la bilaabay sameyntiisii bartamii qarnigii 20aad waxaana hirgeliyay 70-yadii labadii nin ee lagu yeeri jiray Robert iyo Finton. internetka kadib ayaa la bilaabay online network iyo alifitaanka World Wide Web oo la soo gaabsho www. haddaba xilligan aynu joogno ayaad u baahanaysaa wax walba aad sameynaysid isticmaalka internetka. alla ayaa mahadle noogu deeqay arrimahan. waxaan filayaa inaan waxun kaga faa'iideeyay muuqaalka aynu ka hadalnay maanta. intaa ku kulmi doono muuqaalkan lamida waxaa idinkaga tegay. Assalaamu calaykum.